bismillaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka shabeelle subaxnimadan idiin hayso waxaa ka mid ah faahfaahinno ka soo baxaya dab xalay ka kacay suuq ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir dowladda soomaaliya oo sheegtay in kenya ay kala hadli doonto weerarada ka dhanka ah xarumaha shirkadda isgaarsiinta hormuud ee deegaanada jubbaland taliska isbitaalka xoogga oo ka hadlay weerar lagu soo qaaday isbitaalkaasi madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo ku baaqay in laga shaqeeyo dib u heshiisiinta beelaha isku haya deegaanada maamulkaas puntland oo shaqo joojin ku soo rogtay gaadiidka bajaajta ee ka howlgala magaalada garoowe ee xarunta maamulkaas marti sharafta ka qaybgelaysa calimasaarka madaxweynaha puntland oo weli kusii qulqulaya magaalada garoowe iyo diyaaradaha dagaalka maraykanka oo duqaymo khasaare sababay ka fuliyey koonfurta soomaaliya wararka dibadda ee shabeelle subaxnimadan idiin hayso waxaa ka mid ah qaramada midoobey iyo turkiga oo wadajir u baaraya dilkii weriye jamaal khashogji iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha suudaan oo ka bilowday magaalooyinka ku yaala dalkaas soo gudbinta warka subaxnimo ee raadiyo shabeelle waxaa idiin suurtagelisay warshadda isbuunyada shaaka doodarayaal tayeesan iyo fadhi carbeed tayo wanaagsan leh u doona warshadda isbuunyada shaaka. waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 25 bisha January sanadka 2019 warkaas oo dhan saaka waxaa la diyaaray wariyaheena aadan daahir cabdi aadan diyeeshe mahadsanid maxamed axmed jimcaale bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada dhageystayaal warkaas oo fidsan faahfaahinno ayaa ka soo baxaya dab xalay ka kacay suuq ku yaal degmada wadajir ee magaalada muqdisho warkaas waxa faahfaahinaya maxamed axmed jimcaale dabkan oo xalay saqdii dhexe ka kacay suuq ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir oo lagu magacaabo suuqa weyn ayaa waxa uu cagta mariyay qaar ka mid ah xarumo ganacsi oo ku yaala suuqaasi waxaa lagu soo waramayaa in dabka oo bilowday abaaro 2 habeenimo oo qadar daqiiqada ay dhiman yihiin uu isku fidiyay qaybo badan oo ka mid ah suuqa weyn ee degmada wadajir ee ka tirsan gobolkan banaadir iyadoona durba gurmad degdeg ah halkaasi oo degdemisa ay la gaareen maamulka shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom iyo maamulka gobolka banaadir kuwaasi oo gaadiidka degdemiska halkaasi geeyey si loo baqtiijiyo dabkaasi si loo yareeyo khasaaraha dabka uu geysto waxaana la sheegayaa in goobo ganacsi dabkaasi uu cagta mariyey iyadoo ay ku basbeeshay hanti halkaasi tiilay ee goobaha ganacsi ee dabku uu cagta mariyey dadka deegaanka iyo qaar ka mida milkiilayaasha xarumaha ganacsi ee dabkaasi uu saameeyey oo la hadlay wariyaal ka tirsan shabeelle ee meesha dabku ka kacay gaaray ayaa waxa ay sheegeen in qaar ka mida ay ku hantibeeleen ee dabka ka kacay suuqa weyn ee degmada wadajir ee ka tirsan gobolkan banaadir meeshaan alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaaha maadle horta meeshaan waxaa ka dhacay waa dabkaasuna ka kacay suuqa weyn dhanka masaajidka waa meesha rinjiga qandalaha oo rinjiga qaybta rinjaha u badneed bada wixii gubtay dabka wuxuu ka gubtay hadda oo ka kacay cadadeeda korka ma rinjiyeed meesha hadda ay ka bilaabatay meeshaan ka mid ahaa alxamdulillahi rabbil caalamiin kankiga hal xaba kama badbaadin tii labaadna waa ka mid ahayd tan waa tii labaad rinji iyo waxaan gedi jiray alaabta dhismaha bada ayaan gedi alxamdulillahi rabbil caalamiin allahi baa kama oo mahadle oo anaga haddana macnaha oo nasiiyay haddana ilaahay naga qaaday ayaa mahad iskale haddana waan rajaynaynaa alxamdulillahi rabbil caalamiin gaadiidka dabdemiska iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa si wada jira ugu guulaystay abaaro 3 habeenimo in la damiyo dabkaasi iyadoo laga badbaadiyay qaar ka mid ah xarumaha ganacsi ee ku yaala suuqa weyn degmada wadajir ee gobolka banaadir waxaana la tilmaamayaa in aanu jirin wax khasaare nafeeda ee ka dhashay dabkaasi marka laga soo tago burbur iyo khasaare hantiyadeed maadaama ay ku basbeeleen xarumo ganacsi dabka ka kacay suuqa weyn ee degmada wadajir ayaa qayb ka ah sidaan oo kale suuqyo ku yaala magaalada muqdisho oo dab siyaabo kala duwan uga kacay oo ay ka mid yihiin suuqa weyn ee bakaaraha suuq ku yaala degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona horay sidoo kale xarumo ganacsi oo ku yaala isgoyska banaadir ay sidaan oo kale dab uga kaceen waxaana arrintaani dad badan ay isweydiinayaan sababaha ka dambaysa
iyadoo weli aan wax war rasmi ah laga soo saarin sababaha kalifa dabkaasi oo siyaabo kala duwan islamarkaana isxixiga uga kacay suuqyo waaweyn oo ku yaala muqdisho iyo deegaanada ku dhowdhow. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Kenya ay kala hadli doonto weerarada ka dhanka ah xarumaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud. warkaasi waxaa eegaya wariyaheen Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki. cabdullaahi xamud wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in kulankii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee shalay intiisa badan diiradda lagu saaray burburintii ciidamada Kenya ay kula dhaqaaqeen dhowaan xarun shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ay lahayd. falkaasi ay ku kaceen ciidamada Kenya oo aan ahayn kii ugu horeeyay ayaa waxaa golaha wasiirada horgeeyay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdi Canshuur. dood dheer oo ay ka yeesheen golaha wasiirada falka lagu dhibaateynayo ganacsatada Soomaaliyeed gaar ahaan shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom dhibaatooyinkii isxigxigay ee loo geystay kadib ayaa waxaa la go'aamiyey in dhibaatooyinkaasi la horgeeyo shirweyne caalami ah oo ay isugu imaan doonaan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya isla markaasina ka dhici doono magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. shirkaasi oo qabsoomi doono 28 ilaa 29 bishan aynu ku guda jirno. shirkaasi dhanka dowladda waxaa uga qayb gali doona oo warbixin laga sugi doonaa sida shirka golaha wasiirada lagu go'aamiyey wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. kadib waxaa warbixin gaaban la siiyey wasiirka boostada isgaarsiinta dhacdadii xumeed ee ka dhacday xuduudda Kenya ee lagu burburiyey siinka ama bahasha ay isticmaalaan teleefanada oo ay shirkad Soomaaliyeed ay lahayd. arrintaas waxaa laga hadlay inay markii sideedaad ay tahay dhowrkii sano la soo dhaafay ee la burburiyo siimankaas ay isticmaalaan ay dadka xaafadahaas degan ama magaalooyinkaas degan ay muhiim u tahay inay isticmaalaan EBC-ga maadaama ay isticmaalaan iyo teleefanadaba. marka waxaa lagu heshiiyey maadaama uu jiro shir ay isugu imaan doonaan dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya 28 bishan soo socoto wasiirka arrimaha dibadda uu aadi doono Mandera in arrintaas si falanqeyn guud ah lagu sameeyo haddii ay ka soo baxdo in ay falkaasi u yahay fal qaldan in dowladda Kenya ay wax ka qabato annagoo aaminsan dhowrina walaaltinimada iyo saaxiibtinimada annaga iyo Kenya naga dhaxayso. waxaan u taxsiyeynaa dadkii meelaha dhibaatada ka soo gaartay. marka taasna wasiirka arrimaha dibadda waxaan ka sugi doonaa inuu naga siiyo warbixin markuu shirkaas soo idlaaday hadduu ilaahay ka yahay. go'aankan ka soo baxay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay burburin kula dhaqaaqeen xarun shirkadeed oo ay lahayd shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo dib-u-heshiisiinta beelaha isku haya deegaanada maamulkaasi. warkaasi waxaa faahfaahinaya Cabdiqani Bashiir Xuseen. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Guudlaaba ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaal beeleedyo dhowaan dib ugu soo cusboonaaday deegaano dhaca maamulkaasi gaar ahaan xadka kala qaybiyo gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. mudane Cali Guudlaaba madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle oo khudbad ka jeedinayay kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa cod dheer ku sheegay in beelaha walaalaha ah looga baahneen in dagaallo ku dhexmara deegaanada maamulka Hirshabelle balse looga baahan yahay siduu hadalka u dhigay in ay gacmaha isqabsadaan si looga gudbo marxaladaha xilligan ka taagan deegaanadaasi. waxay u baahan tahay in dib-u-heshiisiin dhaba laga sameeyo. waxaad ogtihiin amnidaha deegaanada qaar qaybo kamida ka jiro in amnigaas laga shaqeeya loo baahan yahay. horumarkii maaragtay isaykana waa nagala rabaa. waxaad maaragtay intaas ku qaban karnaa waxay tahay haddii ilaahay xaali ka noqdo aan ku dadaalo guud ahaan midnimadaas wixii qaranka jirana annaga naftakeena xukuumadda in lala xisaabtamaan diyaar u nahay. baarlamaanku waa shaqo dejiye baarlamaanka codkooda meesha ku nimid diyaar waxaan u nahay in lala xisaabtamo wixii qaranka jira in la saxan rabnaa insha allah haddii ilaahay xaali ka noqdo mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahadcelina xameelka baarlamaanka dadaalkiisa iyo sharciyadii xukuumadda isugu gudbisay ee baasiga ku mahadsantiin ayaan leehay. hawsha qodobka midnimada ku gaari karnaa midnimada ku gaaraan leehay. aad iyo aad ugu mahadsantiin. dhowaan ayaa dagaal beeleedyo khasaare geystay waxa ay dib ugu soo cusboonaadeen xadka kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe kaasi oo khasaare geystay isla markaana looga baaqay beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada dega in ay joojiyaan dagaal beeleedyadani ka soo cusboonaaday deegaanadaasi.
diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka ayaa duqeymo ka sameeyey qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya. diyaaradaha dagaalka ee dalka maraykanka ayaa la sheegay in 2 duqeyn ay ka sameeyeen deegaan ku dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay howlgalka Africom ee maraykanka ee qaaradda Afrika. Africom ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkaasi ay si wada jir ah u fuliyeen iyaga iyo waliba ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. howlgalka Africom ayaa waxa ay sheegeen in ay kordhinayaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee dhinaca duqeymaha ah oo ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah gobolada ku yaala koonfurta Soomaaliya si ay yiraahdeen loo hoos looga dhigo awoodda xarakada al-shabaab. maraykanka ayaa waxaa qoraalka ka soo baxay ay ku sheegeen inaysan jirin wax khasaare ah oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo weerarkaasi ka soo gaaray dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada duqeymaha ay ka dhaceen. maraykanka waxa uu intaa ku daray in iyaga iyo waliba Soomaaliya ay si aad isaga kaashanayaan sidii ugu hortagi lahaayeen weerar al-shabaab ka imaan kara oo ay ku sameeyaan qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya. warka qoraalka ay ka soo baxay howlgalka Africom ayaa waxaana lagu sheegin khasaaraha rasmiga ah ee duqeyntaasi ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Dhexe ka soo gaaray xarakada al-shabaab. maraykanka ayaa waxa uu sare u qaaday duqeymaha inta badan uu ka sameeyo qaar ka mid ah deegaanada ku yaala gobolada koonfureed ee Soomaaliya, iyadoo bishii la soo dhaafay iyo waliba bishan lagu jiro ay duqeymo ka sameeyeen qaybo ka mid ah Soomaaliya. Puntland ayaa shaqo joojin ku soo rogtay gaadiidka bajaajta ah ee ka howlgala magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi. warkaasi waxaa gaalkacyo ka soo diray waliyaheena Cali Xasan Barkhada Cali Gaab. ammaanka magaalada Garowe caasimada maamul goboleedka Puntland ayaa saaka oo Jimcaha si weyn loo adkeeyay. ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Puntland ayaa la soo dhigay wadooyinka muhiimka ee magaalada Garowe caasimada maamul goboleedka Puntland. meelaha muhiimka ee lagu arkayo ciidamada waxaa ka mid ah wadooyinka waaweyn, aaga madaxtooyada iyo sidoo kaleete meelaha kaleete ee muhiimka sida garoonka diyaaradaha magaalada Garowe. ciidamada ammaanka Puntland ayaa foojignaan dheer iyo muujinaya xilli madaxda dowladda Soomaaliya qaarkood halkaas ay gaareen ayna ku wajahayeen qaar badan oo ka tirsan madaxda dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada iyo xubno ka socda beesha caalamkana halkaas ay ku qulqulayaan. taliska ciidamada qaybta booliiska gobolka Nugaal ee maamulka Puntland waxa uu amar dul dhigay gaadiidka loo yaqaan bajaajka ee ka shaqeeya gudaha magaalada Garowe. taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal ee maamulka Puntland gaashaanle sare Xasan Cabdullaahi ayaa la wadaagay awaamirta ay dul dhigeen gawaarida bajaajka warbaahinta, wuxuuna sheegay in muddo 2 cisho ay ka mamnuuceen gudaha magaalada Garowe. kadib xaalado abni informational haya oo aan isla garanay maamulka gaadiidkaas leeyahay bajaaj 2 maalmood 16 iyo 27 habeenada 48 saac dhaqaaqa gaadiidka bajaaj leeyahay in la hakiyo gaar ahaan xaasuumada. arrintaas waxaan rabaa in aan warma qabto la isku heli maadaama ay maamulkii iyo saraakiisha sare oo booliiska sida taliyaha booliiska iyo anigoo taliyaha qaybta kulan aan sameynay waxaan isla garanay inay isu socodka la hakiyo iska dhici karnaa gaadiidku wax diiwaan gashan iyo waxaan diiwaan gashanayn labadaba inay jiraan. laakiin waxa weeye waxaan hadda idaacadda uga sheegaynaa in laga wada arko shaashadaha la is wada gaarsiiyo arrintaas. annagu informationkii danta aan ka leenahay xaalad amnigu hadda kama sheegayno idaacadaha, laakiin waan u sheegnay gaadiidleydaas. waxaan marka u caddaynayaa ciddii amaamirta u hoggaansami weyda iyo waajibaadka la kala qaatay waxay noqonaysaa cidda la doonayo iyadoona wixii waajiba oo amnigu ku leeyahay waa ka qabsanaya haddii ilaahay idmo. awaamirtan iyo foojignaantan amni ee ka soo baxaysa magaalada Garowe ee caasimada maamul goboleedka Puntland ayaa ku soo aadaysa xilli madaxda dowladda Soomaaliya kuwa maamul goboleedyada iyo beesha caalamka ay ku qulqulayaan magaalada Garowe ee caasimada maamul goboleedka Puntland si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee maamulka Puntland Said Cabdullaahi Dani. Cali Xasan Barkhadle Cali Gaab, wararka Shabeelle ee Puntland. halkaad warka kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. qaramada midoobay ee Turkiga ayaa wadajir u baaraya dilkii wariye Jamaal Khashoggi oo lagu dilay gudaha dalka Turkiga. xubno ka socda qaramada midoobay ayaa la sheegay in ay dhawaan u safri doonaan dalka Turkiga si ay baaritaano madax bannaan ugu sameeyaan dilka loo geystay wariye Jamaal Khashoggi oo 2 Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, gaar ahaan qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaaladaasi. sarkaalkaasi ayaa la sheegay in uu si gaar ah ugu kurgeli doono xaaladda dil ee loo geystay saxafigaasi oo u dhashay dalka Sacuudiga. waxaana la sheegay
in dowladda turkiga iyo weliba qaramada midoobey ay si gaar ah isaga kaashanayaan barnaamijka la doonayo in baaritaanada caalamiga lagu sameeyo dilka suxufigaasi oo dilkiisa si aad ah looga hadlay caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobey ay wakiil usoo dirayso kiiska ku saabsan dilka Jamaal Khashoggi kaasoo lagu wado in toddobaadka soo aadan uu gaari doono magaalada Ankara ee xarunta dalka turkiga. diblomaasiyiin u dhashay dalkaasi turkiga ayaa waxa ay horay amar ugu bixiyeen in baaritaano caalami ah lagu sameeyo dilka saxafigaasi oo lagu dhex qaarijiyey gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka turkiga. dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka Suudaan ayaa ka bilowday magaalooyinka ku yaala dalkaasi. dalka Suudaan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku sii fidayaan dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. waxaa la sheegay in kumanaan ruux ay isugu soo baxeen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalkaasi iyagoo dalbanaya in xilka madaxweynimo uu ka dego madaxweynaha dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo ka badan 30 sanadood. waxaa la sheegay in dad fara badan oo rayid ah ay toogteen ciidamada ammaanka ee dalkaasi kuwaas oo la sheegay in rasaas caadi ay u adeegsadeen dadka dibadbaxaasi isugu soo baxay. waxaa la sheegay in qaybo kaleeto oo ka mid ah dalkaasi Suudaan ay ka bilowdeen dibadbaxyo hor leh oo la mid ah kuwa ka bilowday ama ka socday magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan. waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada ammaanka ee dalkaasi isku dayayaan inay ka hortagaan dadka ka qayb galaya dibadbaxyadaasi ka soconaya qaybo ka mid ah gudaha dalka Turkiga. warkii subaxnimo dhageystayaal kala socoteen idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho subaxnimadana Jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 25-ka bisha January sanadka 2019 inta ayuu ku dhan yahay. cidda warkeena uu sheegay waxay dib ugu heli karaan boggaan ku leenahay internetka ciwaankiisu yahay radioshabelle.com.